ku xidhnow badda cas 24 t v. إنا إلهي وإنا إليه راجعون متحوينها جمهورية سوماليلاند موسى بيحي عبدي isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda shacbiga Soomaaliland wuxuu dhanbaal taasi u diray golayaasha guurtida wakiilada waxa garadka waayeelka qoyahanka qoyska ehelada qaraabada iyo asxaabta iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka baxay alla naxariista janna ka waraabiyo wasiirka hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha muddooyinkii ugu dambeysana xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada marxuum Axmed Cabdi Kaahin Casood oo ku geeriyooday maanta taariikhdu tahay 23 bisha koowaad 2020 caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxa madaxweynuhu si gaar ah uga tacsiinay geeridaasi golaha wakiilada Soomaaliland oo marxuumku ka tirsanaa madaxweynuhu wuxuu marxuumku ku sifeeyay siyaasi waayo arag oo xilal kala duwan ka soo qabtay qaranka Soomaaliland kana mid hawdayaashii kaalinta weyn ka galay dib u dhiska dalka iyo nabadeynta shacbiga Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu marxuumka uga baryay inuu naxariista janno ka waraabiyo golayaasha guurtida wakiilada waxgaradka waayeelka qoyahanka qoyska ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta shacbiga Soomaaliland oo ka baxayna samiri imaan saadiqa ka siiyo Maxamed Yaasiin badda cas 24 t v.